بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتي وان soo salaamayaa meel kastoo joogtiin. waxaan maanta rabay inaan topic ku soo qaato siyaabaha keeni kara inuu ilmo fiican uu Ilaahay ina siiyo ama ilmo wanaagsan. Taa horta waxaan ku horeysiinayaa in uu jiro waalid aad u fiican oo haddana maad aragtay ilmihii adduunkan kulli imtixaanku waa iska jiraa in ilmihii lagu imtixaamo oo ilmihii uu wax sameeyo oo dhibaatooyin geysto waxyaalahaasi de kulli waxaan u maleynayaa in waalidka la rabo in ay ku samraan oo Ilaahay ugu sii dhawaadaan oo ilmahan wax lagu tusayaa waxay tahay kulli meesha 10 baa jira marka taasi way dhacdaa marka ilmuhu hadduu kugu yar kululaado ku maqli waayo kugu xumaado oo adigu aad deep inside aad dareemaysid inaad qof fiican tahay waxaan u maleynayaa inay tahay inaad ducada aad u xoojiso oo 10ka iyo imtixaankaadii lagu dhiibay aad iskaga samirto taasi waa entre parenthèses waa in yar soo xasuustan doonaynan niyada kugu dejiyo runtii way dhacdaa xaafado badan way haysataa arrintaasi maanta topic-keenu waxa weeyaan insha Allah in sababaha keenaya ilmo fiican in Ilaahay na siiyo sababaha iyo ficilada keenaya in ku heli karno ilmo wanaagsan haddii la yiraahdo marka awalan qofku markuu guriga waalidkiisa joogo oo aragteen waalidku badiyaa waxay nugula dadaalaan diinta waxay nugula dadaalaan waanada waxay nugula dadaalaan ayagu jid wanaagsan ayna tusaan oo wax markasta wax noo sheegaan inagina waan yarnahay oo wixii markiiba nagama dhaadhacayo haddaanu sakhrannahayna waan maqlaynaa haddii kalena teenun bay noocad marka badiyaa in ilmuhu horta waa kii waalidkiisa maqla laakiin haddana way dhacdaa in da'yada qaar khaasatan markuu 12 ilmuhu dhaafo inuu madax adeeg la yimaado xilligaasina waad ogtiin biology wuxuu sheegayaa inuu waqtigu hormoonadu soo baxaan ay wax isbedelaan jirka qofka ninkii oo naagtaba wiilkii gabadhaba marka awalan guriga markaad joogto ku dadaal inaad wax si kasbato ku dadaal inaad waalidkaaga maqasho ku dadaal inaad anfacdo waayo mahma carabiya tiraahda kama tudin tudaan sidaad samayso adna waa lagu sameeyaa waalidka dad markasta afka ku taagayso aad diidayso taladooda aad aanad wanaajinayn aanad adigu isdirayn wuxuu isagu ku diramaa waa in adigu aqligaaga iyo niyadaada ka keento inaad soo karto maanta hooyo maanta oo dhan shaqeynaysa nasi wiiliga gabadh baa inaas ka fikiraan wiilashu way hooyadooda caawiyaan gabdhuhuna way hooyadooda caawiyaan wiilashu way aabahooda caawiyaan gabdhuhuna way aabahooda caawiyaan halka waxaad ku soo samaysay gurigiina adigu hooyada aabaha la jooga wanaag yarood samaysay waa lagu qorayaa soo waxa u badan tahay in ubadkaagu ka dhaxlaan sidaad hooyada aabaha ugu fiican tahay fiicnaashahaasina guriga markaad ka tagtid guri dhisato way ku daba soconaysaa inaad weli waalidkii u fiicnaato waayo ducada waalidkaad ka hesho naftaada ka dhaxlaysa bidhuhuna waa ubadkaaga arrinta labaad waxa weeyaan inaad marka horeba aad ku dadaasho ilmaha dhalan doona inaad u raadiso u doorto aabba fiican iyo hooyo fiican aabaha fiican iyo hooyada fiican sifooyinkiisa waan ka dharagsannahay markaa ku dadaal hooyo iyo aabba fiican oo waxa ugu muhiimsan waa kalimatu laa ilaaha illa allah muxammad rasuulullah inaad doonoonatid oo aad ugu dadaashid waalid fiican ilmaha iman doona haddii la yiraahdo inaad u doorto arrinta saddexaad waxa weeyaan duco walba waa muftaxa guusha marka inaad ku ducaysato markaad qof fiican hesho inuu ubad khayr qabo Ilaahay ku siiyo ku ducayso inaad awlaad ku anfacda oo khayr qabta khaasatan khayr qabta in Ilaahay ku siiyo ducadu waa muftaxa barwaaqada waa muftaxa arsaaqada waa muftaxa ku siinaya natiijo fiican iyo midhooyin fiican marka aad ugu ducayso ubadka aad raadinayso in Ilaahay kaaga dhigo kuwa saalixiina kuwa khayr qaba kuwa ummadu ka nabad gashay kuwa diintooda iyo naftooda anfaca dadkooda iyo dalkoodana ay xifdiyo oo ilaaliyada oo wax ku soo kordhiya fiican ku ducayso mar walba ducadu waa muftaxa miraha fiican qodobkan ku xiga waxay noqonaysaa ayaduna aad bay muhiim u tahay waa labada qof markay wada kulmayaan wiilkoodu xaaskiisa rabo gabadhu haddii zawjkeeda rabto oo la isku imanayo la kulmayo halka kulliba natiija ka soo baxaysa haddii Ilaahay idin qoro marka natiijada ka soo baxaysa shaydaanku waqtigiisa soo xaadiray ka mid tahay marka natiijada waa inaad duco laga akhriso shaydaanku in Ilaahay nabadgeliyo laga weydiiso inuu ka nabadgeliyo waa inaad weydiisan karto duca jirta ducada halkan aan igu soo qorayaa
markaa xagga baan igu soo qorayaa in akhrista qofku wuxuu akhrisanayaa isla habeenkaa la kulmayo isla markaa actionka lagu jiro qof walbaba degdegsan waad iloobi kartiin laakiin waa inaa labadiinuba soo xasuusatiin ama midkiinba ka kala soo xasuusiyo waa inaa ducada oran kartiin xataa waxaad bilaabi kartaa salaad kastoo tukanayso kadib waa akhrin kartaa waxaad xataa samayn kartaa maalintaa aad ku jirto amba isla secondaa madaxaagu kusoo dhaco inaad rabto maanta inaad wixii ilaahay kuu xalaaleeyey kuu baneeyey aad maanta aad ku raaxaysato maskaxdaa markay kaaga soo dhacdo inaad maanta xaaskaaga u tagayso ama zawjkaaga u tagayso markay sidaa maskaxda kaaga arrintaasi kaaga soo dhacdo ducadan akhri dharaartaawna waa ku celcelin kartaa 2 saacadood ka hor waa ku celcelin kartaa 30 mirir ka hor waad ku celcelin kartaa marka waa halka afkii dhalinyartan ku hadlaye daawaha arrimuhu saaran yihiin ayadana waa ku celi kartaa ducadaas waad oran kartaa haddaad xasuusanayn aad ka cabsoonaysa xasuusatana ka hor waad oran laakiin ku dadaal marka actionka lagu jiray kasii fiican tahay in 1 minute or 20 second before aad tiraahdid ducada halkan baan igu soo qoraya waxaa kaloo muhiima hooyadu markay uurka leedahay in laga ilaaliyo stresska in laga ilaaliyo carada inayna hooyadu dareemin cidlo waa markay u baahan tahay inaad garab joogto waa markay u baahan tahay caawimaad waa markay u baahan tahay sheeko waa markay u baahan tahay in hawada lasoo marmariyo waa markay u baahan tahay cunto kala duwan in la siiyo waa markay u baahan tahay naxariistaada markaasi waa marka lagu baahan yahay weeyaan 100% xilligaas aad lagu dareemaya maanta 40 saacadood shaqo ku maqan tahay waa lagu xiisoon of course laakiin gabadhu waxay ninkeedu xoog ugu baahan tahay waa markay aad jirkeedu daciif yahay marka runtii naxariis baa loo baahan yahay gabadhu hadday stress dareento ilmaha ka dhaxlaya gabadhu hadday carada ku jirto inta ay uurka leedahay ilmaha ka dhaxlaya waxay hooyadu dareemayso ilmuhu uu dareemaya walaalayaal marka hooyadu markay uurka leedahay waxa weeyaan dabiicadeeda isbedelaya nervous bay noqon kartaa caajis bay noqon kartaa hurdo miiran bay noqon kartaa waa naf daalan waa naf laga dhex cuntaynayo waa naf laga dhex ciyaarayo waa naf lagu dhex booboodayo waxa weeyaan wax kasta cuntada saas uu ilmuhu uga soo nugaya uga soo jeedanaya xitaa in ilmaha uurka hooyo walba uur qaada ilmaha waxa ugu horeeyo hooyada ka nuugayo ka cunaya waa calciumka oo u fiirsada hooyo walba ilmo dhashay in amba jilib xanuun bay hadhow qaadi amba ilkaha qaar baa laga saari amba ilkaha dalooshabi midda kale dadka qurbaha jooga marka hooyadu uurka leedahay ay uurba caloosha u galo waxa ugu horeysa loo tilmaamaa waa dhakhtarka ilkaha ayaa ballamooyin looga qabtaa ilkahiga dib loo eegaa haddii waxsay yihiin waa laga shaqeynayaa waayo haddii laga shaqeyn waayo ilkahaasi uu meel wax ka sii yahay markay uurka qaado ilkihii wuu sii daciifaya meeshaasi nabur weyn baa sii gaaray oo sii xumaanaya xilliga ay uurka leeyihiin runtii dumarku waa xilliga ugu baahi badan yihiin oo odageyga xaaskeyga amba ninkeyga dee ay u baahan tahay weeyaan marka stresska carada cidlada ka ilaaliya banaanka badan iyo maqnaashaha badan iyo may lasoo hadal agjoog iyo rasaar u naxariiso waana meelaha dhibcaha badan ragga laga siiyo ah ninku hadduu xilliga gabadhu ugu liidato oo ugu jilicsan tahay uu ag joogo waa halkii dumarku wax ka cabiraan hadhow toole marka ilmahaagu ha ka dhaxlo in markuu soo dhasho ilmo happy ilmo faraxsan ilmo dabeecad fiican ilmo firfircoon ilmo fiican waxaasoo dhan waxaa sabab ahaanaya in hooyada laga ilaaliyo stresska caburka iyo carada qodobkan kalena muhiimadeeday leedahay bacdama uu ilmuhu dareemayo waxay hooyadu dareemayso hooyada waxaa looga baahan yahay aad iyo aad ugu dadaasho intaad uurka leedahay from maalinta ugu horeysa isku ogaato uur ilaa iyo maalintaad ka dhalayso inaad qur-aanka akhrido waxaan nigula talinayaa 30 jis inaad tilaawo ku akhridid tilaawo akhri kasoo bilowga ilaa dhammaadka intaad uurka leedahay haddaad dhammaysana ku celceli dib usoo bilow dhamee qur-aanka ku celceli in soo akhri ilaa dhammaad markaa 30 jis haddaad 10 jeer soo akhrin karto haddaad 5 jeer kitaabka dhammayn karto haddaad 10 jeer intaad uurka leedahay qur-aanka ha dhigin waayo qur-aankan aad akhrinayso ilmaha yar uu dareemayaa wuu gaarayaa qodobkan kale waxa weeyaan ilmaha xaaraan ha siinin ilmaha xaaraanta ka ilaali waayo way kasoo baxaysaa hadhow toole
marka xaaraan ha u dhoweyn. Qodobkan waxaa idin xasuusinayaa ilmaha inaan laga niyad jabin waxyaaluhu raba inuu sameeyo. Laba meelood baad ka eegaysaa. Haddii waxaanu doonaya ilmuhuna diintiisa kasoo horjeedin iyo haddii ayna hayn wax halis ku ah caafimaadkiisa. Marka waxyaalaha u muhiima inaad ku dhiirigeliso mooye waxaa ma awoodaysid ma karasid ilmaha ku oran waayo wuu aqbalayaa. Qodobkan inoogu xigaa wuxuu noqonayaa ilmaha hortooda ha isku leynina, ha ku murmina, ha isku dagaalina, wejigiinu cabursan ilmaha soo hor fariisanina. Ilmaha waxyaalaha ka ilaali waayo eeg inagu waxaynu soo marnaa da'deena marka la qaybiyo khaasatan marka la yar yahay 3 baa loo qaybiyaa. Ilmuhu wuxuu arko maskaxdiisa ku soo duubo markuu da'diisu yahay amba uu maqlaba markuu dhasho ilaa ayuu ka gaadhay 12 aad bay muhiim u tahay. Kadib faas kala bilaabma step kala bilaabmo 12 ilaa 20 qofku ka gaadhay. taasina waa faas kale weeyaan oo xilliga 12 iyo 13 iyo 14 waa xilliga hormoonadu soo baxaan, waa xilliga jirku qofku isbedelo wiil iyo gabadhba, waa xilliga ma aragtay qofkii uu dabeecado la soo baxayo, dabeecado bilow ah waa xilligu haya maya oran karo, okay wax diidi karo, waxna u yeeli karo isagoon wali fahansan waxna wax fiican mise wax xun. marka da'yada waxba lagu kala sheegaa da'ba waxbay leedahay. marka anigu waxaan imka ka hadlayaa ilmaha dhashay ilaa 12 13 ka gaarayo ilmahaasi ha ku dadaala ilmaha akorinaysiin inuu buuq iyo dhibaato iyo muran iyo dagaal iyo canaan hooyadii aabihi canaananayso odagii canaananayo xaaskiisii waxaa iska ilaaliya waayo ilmahan waxaan uu duubayaa hadhow toolana 12 wixii ka dambeeya waa wuxuu ku dhaqmi doono, waa wuxuu iska dhaadhicin doono, waa wuxuu kula dhaqmi doono dadka kale uu ka soo baxayaa waxaan hadhow markuu weynaadana saameyn weyn bay ku yeelanaysaa. marka haddaad dee waa la wada nool yaho 2 qof oo 2 xaafadood ka kala yimid baa tihiin dabeecado kala duwan leh guri iskugu yimid way jiraysaa wax la iskaga hor iman karo, laakiin ku dadaala ubadka hortiisa inaydan ku wada hadlin ayagoo maqan wada hadla amba banaanka isla tago meelaha badda hortiisa ku soo horsheekaysta amba mooyaan gaariga dhexdiisa ku dhex sheekaysta, laakiin guriga ubadka ayagoo maqan waa ku dhex sheekaysan karta, laakiin ayagoo jooga albaabka wada hadalka ha isku furin waayo ilmahan wax kastoo inaga maqlayo uu xafidaya, wax kastoo inaga arkana uu xafidaya. marka taladani waxa weeyaan ilmuhu xilli ay joogin guriga wada hadla, hadday guriga joogaana dee intaad kabiina xidhataan banaanka isla tago meelaha kusoo sheekaysta, laakiin ilmaha ha ku hor hadlina, ha ku hor murmina, waxaan dib u hadhow samayn doonaa. amba waxa dhici kartaba inay noqoto waana sida u badan tahay ubadku naftooda ayagoo way isnacaan. maxay u nacayaan? waayo meel toxiga oo la is haysto maalin walba la wada murmaya iyo dheg ku dhex jiraan. marka arrinta aad uga dadaala insha Allah walaalayaal, ana nafsadeeda waan u sheegayaa laakiin dibakaas waan soo gaarsiiyay. waxaan jeclaan lahaa inaan bilowga ku daro taladan kale ee qodobkan kale ee wanilaawayhaad. qodobkana wuxuu sheegayaa ilmaha inaad magac fiican u bixiso, magac aad u wanaagsan u bixi. waynu aragnay inaad aragteen baan u malaynayaan, horta waan arkay waxweeyaan ilmaha magaca loo bixiyo micnaha magacaasi saameyn buu ilmaha ku yeeshaayo magacaasi waxay ka dhigan tahay ilmahaaga waad ka dhex arkaysaa dabeecadiisa siduu u dhaqmayo. waxaan kusoo dhammaystirayaa ilmuhu waynu arki karo waalid jecel, maxabo waynu arki karo, kalgacayl waynu arki karo, aabihii hooyadii ammaanaya, aabihii hooyadii u mahad celinaya, biyay kusoo horrigta waa mahadsan tahay, cunto macaan bay ku karaysa waa mahadsan tahay. ilmuhu waxyaalaha fiican waynu waalidka ka arki karo. kullo ilmahan tvgii waxbuu indhaha ku dhufanaya uu arkaya, dad banaankaa socdo oo wax sameynaya oo wax kulle ilmahani uu arkaya dadka kale waxay sameynayaan. marka gurigii wayna maxabo la tusi karo, hooyadu wayna aabihii markuu biilkii maanta bisha uu keenay tiraado waad mahadsan tahay, maanta biilkii baad noo keentay, alaab fiican baan maanta kusoo adeeganay. komplimongu labada qof isku sameynayaan ilmuhu wayna dhegta ugu dhacdo waayo wuxuu ilmuhu arkayaa waalid isku faraxsan oo isjecel, qalbiga ugu degaya, uu seexanayaa iskoolkii lambara fiican buu ilmahaasi ka keeni,
asxaabtiisa si nafis ugu dhex jiraya, cidna ma dhibayo qofkaasi. Marka maxabada iyo jacaylka labada waalid ka dhexeeya ilmuhu weynu arki karo.